markale kulanti wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabay munaasabad ballaaran oo lagu xusaayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida warkan uu noogu soo diray wariyaha Muqdisho nooga soo warama ee Cabdikariin Shidane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhagax dhigay taalada SYL ee magaalada Muqdisho oo lagu maamuusayo dhalinyaradii 13kii ahaa ee aasaasay ururkii gobonimo doonka Soomaaliyeed ee SYL madaxweynaha ayaa intaas kadib waxa uu kala qayb galay boqolaal dhalinyaro oo ka kala timid guud ahaan deegaanada dalka munaasabadan oo lagu qabtay taliska ciidanka gaadiidka booliska Soomaaliyeed taas oo ugu dabaaldegayeen 76 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL munaasabadan waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mudane Muulid Xuseen Guhaad wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamuud Diiriye taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Daayir Aadan Cilmi Indha Qarshe taliyaha booliska Sareeyo Gaas Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha suluubta Sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac maamulka gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamuud Diiriye oo soo agaasinta munaasabadan ayaa ku bogaadisay dhalinyaradii ka kala timid qeybaha kala duwan ee dalka taas oo muujisay inay tahay maanta maalintoodii waxaana dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqday in ay gacmaha is qabsadaan isla markaasna iska kaashadaan sidii ay u heli lahaayeen xuquuq joogto ah isla markaasna ay ugu dayan lahaayeen 13kii dhalinyaraha ee SYL waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho iyo deegaanada dalka gayiga Soomaaliyeed guud ahaan iyo daafaha dunidaba inaan isugu hambalyeeyno 76 guuro curashadeedu ay caawa noo cusub tahay annagoo haysana page cad oo ay wax noogu qoran yihiin nala kula dhageystay madaxda qarankana aan sii gaarsiinay wixii ay u eegmanayd wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyadoo kaashanaysa wasaaradaha dawlad goboleedyada iyo ururada dawlad goboleedyada ee dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa laga tiro badan yahay in codkooda la dhageysto kuwa baahiyaha gaarka qabo in codkooda la dhageysto in la dhageysto dhalinyarada beelaha waqooyi qabo waayo matalaada aqalka sare maanta uu ku fadhiyo waad ogtahay dad badan ka maqan oo aan deegaanada Soomaaliyeed u dhameyn laakiin sida hadda ururka dhalinyarada golaha dhalinyarada qaranka u dhisan yahay ama aan u joogno ama aan qorshaheenu yahay waa inaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed loo yacado ilaa Raas Kamboni waxaan ku faraxsanahay inaan hortaada keenay waxaan leeyahay mar kale hambalyo waxaan ku jirnaa bil barakaysan waxaan leeyahay intii safarka noogu timidna soo dhawaada ilaahay ha idin wada barakeeyo ramadaanka bishan barakaysan ay noogu soo aadayna ilaahay tobanka ugu horeeyo oo dabayaqadiisa aan joogno ilaahay ha noogu naxariisto tobanka dhexana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa madasha ka jeediyay kelmad uu ku dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed isagoo dib ugu xasuusiyay doorkii taariikhiga ahaa ee ku lahaayeen xurnimadoonkii qarandhiskii iyo horumarkii dalka dhalinyarada Soomaaliyeed alxamdulillaah ilaahaygi caawa halkan isugu kaay keenay annagoo u dabaaldegayna xuska 15 May ee ah sanad guuradii ka soo wareegtay ee aasaaskii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed SYL oo laga joogo 76 sano oo ah 1943 oo ay aasaaseen 13 dhalinyaro ah 13kaas dhalinyaro waxay ahaayeen dhalinyaro vision leh aragti dheer leh Soomaalnimo fiican wadaniyiin ah geesiyiinna ah waxay arkayeen oo ogaayeen waxa uu gumaysigu yahay iyo waxa uu sameyn karo gumaysiga dhabta ah oo Afrika iyo meelo badan gumaystay waxay caan ku ahaayeen inay bedelaan dhaqamada dadka ee u tagaan oo ay ka bedelaan dhaqamadooda ay bedelaan caadadooda waxaa intaas weheliya luqadahooda hadday ku raagaan inay bedelaan luqadaha ummadaas ay leeyihiin waxaa intaas dheer maxaan ku yiraahdaa dhaqanka diinta inay bedelaan iyo caadada ay leeyihiin waxay fahamsanaayeen
haddii gumaysigaas uu sii joogo muddo dheer oo ay arkaayeen dhibaatada uu geysan karo 50 sano soo socota inay qaateen laba arrimood midkood inay kala doorteen laba arrimood midkood waxay kala doorteen inay aqbalaan oo isdhiibaan oo gunnimadu ay ogolaadaan oo intaan sheegay lagu sameeyo oo la baro in laga sarreeyo qabkoodii la dilo oo hoos loo dhigo ay ogolaadaan wax walba ay ogolaadaan cabdikariin shadane warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland magaalada Muqdisho